السلام عليكم اسبوع wanaagsan dhamaantiin saa u jeedaan saaka waxaa u socda jimicsi meeyarkan xaggay ugu ciyaarayaan anyways waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar oo very important ah Canada markaa timaadid oo kale dadka Canada kuwa markay imaadaan oo ama single mother-nimo ku imaadaan ama single ku imaadaan muhiimadda waxa waaye hadda marka usoo dhaadhacno meesha markaa imaada marka dee aniga nafteyda ku tashanay iyo carruurteeda yararka ah bes mugtacin igama soo horeynin qaxootinimo ku imaaday waxyaabihii ugu badnaa qaladaadka ugu badnaa aan sameeyey baa rabaa hadda inaan idinka saxo waayo in macnaha la kala faa'iidaysto way fiican tahay jabka aniga igu dhacay inuu adiga kugu dhaco maaha adiga waa inaad iga faa'iidaa aniga saasay ila tahay anigu sida aniga dee u fikirin macnahaas maadaama youtube channel aan aniga leeyahay youtube channelka inkastoo muddo aan ka maqnaa hadda baryahan aan kusoo noqday laakiin muhiimad ugu weyn waxaa rabaa hadda inaan ka hadlo barnaamijyada waddankaasaa ku imaaday iyo ma garanaysaa jabkii igu dhacay marka weliba carruur yar haysatid waxyaaba ugu badan oo ugu muhiimsan oo la rabo inaad ku dadaashid ama aad ka taxadartid okay kow ani markaa waddankaa imaaday rafaad badan iyo jab badan baa soo maray because jawiga dhan igu cusbaa caawinaysa ma laha marka u horeysa qaxootinimo aa ku timaadid yacni qolyaha waddankan dowladda markay ku keenaan qolyo kale gacanta ku gelinaya qolyahaas wax yar way ku caawinayaan intaa hoteelka waxaas ku jirtid iyo intaa guri ka helaysid mar haddaa guri heshid oo waxaa isugu kaa toosaan waxay kaa caawinayaan wax iska yar especially markaad adiga qof luqadda xoogaa taqaano wax kala faahfaahsan qofba ku noolaan jirin haddaa tahayna dee focus badan kuma saaraan waxay ku dhahayaan adresska meeshoo kale ay ku soo dirayaan ama in adiga daba gashid waxaas u baahanahay saana u baahanahay hagee ka helaa hagee ka raadiyaa anaa raadsanayo markaas ka bacdi way ku gaadhi gareenayaan wax yar laakiin waxyaabahaas dee waa wax iska yar inta badan nolosha maaragtay marka hooyo tahay wax walbaa u baahan tahay adigaa la rabaa inaad isdabirtid almost mar sanadka ay buuxsan marbo wax yaraa sanadka iga dhiman almost marka aan dhowr laba bilo hotel aad ku jiray qamaab ahaa xun kale ogeyd baa marka waddanka soo degay marka xaafadda soo degan sidoo kale bilaa winter xun ku soo gaaray oo qabow badan baraf dhacay meel aadi karin ayadana macnaha qamqama iska jiray inta hadda oo samarka waxaas la soo gaaray ama xilligii uu isbedelay baraf badan laga kala yaraaday baa xoogaa dhaqaaq sameeyey waqtigiina wuu iska cararay marka aniga xilligaa dhaqaaq sameynaya oon bilaabay inaan barto soo qaata lessonka ma taqaan drivingka almost yani waxay ahayd June soo qaateen ma garatay laakiin waxaan kugula talinayaa marka ugu horeysa waddanka aad timaadid number 1 waxa aad ku dhaqaaqayso waxyaabaha ku dhaqaaqaysa ku noqoto inaad jiwankaaga iska soo sameysid meesha jiwana lagu yaqaan ama wadamada kale Mareykanka iyo adhoona wax lagu yaqaan waa driving lessonka waaye kan koowaad inaad soo qaadatid waa especially haddaad tahay qof oonan hore gaari u soo wadi jirin ama sideedoo kale ama wax yar la soo bartay laakiin aan lesson haysan oo kaleeto hadda for example haddaad tahay qof oo driving yani ku fiicnaa oo gaari si fiican wadi jiray lessonkaaga waa in horta first of all uusan markaa waddanka imanaysid ku ahaadaa lesson maxaa la dhihi jiray sax ah oo safaaradda kasoo baxay waraaq sax ah oo safaaradda kasoo ka timaaday waa inaad wadataa cadaynaysa inaad qof driver ahayd oo yani Soomaali waddankaadana ku wadi jirtay gaari aniga midka international ku qornaabo waxa aan watona waaba 2 sano qof wato gaari oo inta hadan international lesson ah wato oo hadan international ku sii qoran tahay boob ilaa waxay ugu dhahan laakiin waa ku qiimeynayna still bay ugu dhahan hadii aad wax cad noo keentid badan waxaan sidii waqti bay wax macnaha inta raadinaysid yani lagaga keenayo Soomaaliya ama hadda adiga Afrika ama Soomaaliya meel ka imaanaysid oo aad gaari driver badan Soomaali gawaarida way wada taqaan si fiican bay wada yaqaaniin dhalinyartu badan yihiin lesson fiican soo la imo waa lagu qiimeynayaan aysan ahayn ma aha hadda single mother sidoo kale iska ahayd oo ama hooyo aan gaarisaas wada karin ama hooyo aad tahay gabdhaha hooyooyinka qaaday carruur yar haysto waddankan imaanayo kow abay waxa ku dhaqaaqaysan wax waaye inaad tagtaan meesha jiwanka testiga marka waa inaad iska diyaarsaa marka hore waa diyaarinaysaa waa la soo degaysaa app store-ka kala soo degaysaa waxaa dhahaysaa G1 maxaa la dhihi jiray marka Ontario ama gobolka markaas aad joogto muhiim waa gobolka aad joogto ani Ontario joogaa marka Ontario aad joogto G1 soo degso testiga halkaas aad ka practice gareynaysaa waa for free markaad samaysid hadhow meesha tagaysaa meesha marka balna qabsatay muhiim ah xarunta laga maraayo imtixaanka waa isgeynaysaa marka xarunta isgeysid bes waxaa dhisaa waxaa rabaa inaan jiwanka testina maro lacaga la dhiibaa marka $150 lacagta dhiibaysaa lacagta markaa dhiibtid kabacdi testiga waa maraysaa okay stepka kala rabaa inaan ka hadlo wax waaye testiga markaa maraysid walwal ma jiro because waxay haystaan
qayb af Soomaali ah haystaan aniga way ugu dheen luqadda waddanka ka imaada Soomaaliya ka imaada okay Soomaali waddanka macna u dhalatay Soomaaliya okay Soomaali maada u dhaw af Soomaaliya meesha ku jira marabta ani waxa dhahay af Englishka ay fudud because Englishkan yani si fiican ugu soo diyaariyay markaas Englishkan waxa waa iska aqaan aniga marka okay ciyaar hooyo well, we will go just give me 5 minutes okay thank you swimming pool iyo gym inta u soconaa marka wax yaa la rabaa anyways af Soomaaliga marka hadaarta af Soomaaliga dhiga kartaa af Soomaaliga rabaa laakiin waxay ugu dhaheen midaan ku sameeynayna af Soomaaliga hadaartin adaa badalin kari meesha meel la create translation waa ku dhufanaysaa luqadaarta ka dooranay marna Soomaaliga ka dhiganay marna English ka dhiganay marna Soomaali marna English marka adiga saarta kale marna Soomaali ka dhigan marna English ku dhig adiga ku taasha saas ma sameyn kartaa waa waa easy anyways midda kale oo muhiimka ah raba inaad ii sheego imtixaanka waxba ka baqinin imtixaanka inaad isku soo diyaarsan waaye su'aali jawaab waaye waxaana jawaabta waxa aad qoraysid ma aha waa multiple choice waaye ka dooro waa kee saxa u maleynaysaa camal ma fahantay hal mar iyo laba jeer iyo saddex jeer hadaa ku dhacdina dhib ma laha markiiba $5 kala bixin waa ku ceshani hadaa mar ama laba jeer ku dhacdo waa iska tagay maalin kale haddana iska balansan kartaa oo u iman kartaa balan buu u baahnid meesha iska tagi kartaa haddana maalin kale haddana lacagta bixin kartaa aniga hal mar miyaan ku dhacay mar labaadka haddana meesha anoo jooga lacagta baxshay ma alxamdulillah marka dambe ilaahay baa ii fududeeyay laakiin wax yani saas u adag maaha marka hal mar ama laba jeer ku dhacdid wax badan indhaha kuu furmaayo su'aalahana qaabkay u socdaan su'aalahana waa soo noqnoqdaan inta badan marka saas ula socda marka waxa waaye muhiim waaye inaad leesakaas ka diyaarso waaye muhiim u tahay number 1 because waxa waaye marka leesakaas wanka lagu siiyo waa inaad sanad sugtaa inaad qaybta labaad G2 aad imtixaankiisa martid ama ka hor waa marka laakiin macnaha ma wadi kartid gaari G1kaas gaariga waa in lagu la saarnaadaa qofku la saarnaadaa sharciga hadduu kugu qabto waa khatar marka G2gana ugu gudubtid waa inaad horta hal sano soo haysataa kan kale saas waa ruulku waa saas marka hadda ani ogaan lahaa mar hore inta iska sameeyo baan iska relax garan lahaa markii uu haddana 6 bilood 5 bilood wata camalna G2ga iska diyaarin inkastoo hadda anigu joojinay already June qaatay 2 bilood ka soo wareegtay amalaan waxa 3 bilood dhameen laakiin at the same time waxaan rabaa inaan hadeerba maxaa dhigi jiray G2 iska sameeyo hadda marka G2ga processka la maraayo hadda mar rabaa waan soo sharaxaya ayadana because aniga waxay ugu dhaheen haddii oo aan rabti waqtiga lagu soo gaabay sanadka laga soo yareeyo waa ina iskuulkooda dhigataa iskuul driving school waa ina soo gashaa oo lacag ku bixisaa oo yani iskuul soo martaa اسبوع 6 اسبوع waxay qaadanaysaa ma aqaan walahi hadda marka processkaas bilaaban raba because meeshan hadda dhahdo bas raacaya baska fiidiyoyaal badan ka soo sameeyay anoo rafaada ordaya baska dhaafayo because rafaad badan ayaa maraysa especially marka hooyo tahay ani for example shalo kala hadda waxa igu dhacay jabka igu dhacay waxay ahayd anigoo cunuga iga xanuunsanaa wiilkayga xanuunsanaa anigu subaxda alisay intaa kacay cunugteeda kala diyaariyay baska iskuulka saaray oo cunugayga hadhow haddana intaan diyaarsaday quraac siistay wax cunay baxnay haddana oo bas ku dhacnay may bas kuma dhicin because maadaama uu xanuunsanaa Uber iska dalbaday aan sii socdo oo meesha joogo marka saas u gaaray haddana iskuulka laga soo wacay markaas lagu dhahay listen gabadhaada xanuunsanay maxaa la jiray umo markaas dhahay gabadha hadii xanuunsantaa ku dhahay gabadha saaka waa fiicnaan maxaa dhacay way ma tagtay hadeer ma aqaa waxaaya ayadana ma caloosh waxa laga qabtaa way ma tagtay marka xanuunku ma ogeyn laakiin meesh markay tagtay ilmo yar waayo cunto maabi caloosha loo kacay way ma tagtay ana waxa ku dhahay ilmihii kala la jooga kaliya ay single mother ah hospitalan jooga maxaa la jiray cunugay kala bal rafaadsanaa wadanka ku cusba gaari uu tiyaday maxaa sameynaa dhaani markaas ay ugu dhaheen okay no problem gabadha iska heeninaaye marka waxay ugu dhaheen waxa sameynayna bay ugu dhaheen maxaa la jiray tartiibta bay ugu dhaheen marka waxa dhaani marka cunug ka soo dhamaado ana Soomaali marka xas dhaay cunug ka dhamaatid uberkaaga iska dalbo ileen moogtahay bas ma ka bixi kartid maanta situation maanta adag tahay bas ma raaci kartid bas waa another process waay ka taga waa sugi hal saac waa dhaafa meel qaldan ka gadagay mar it happiness mar ku dhaafa adoo ogeyn bas yani waa hool dheer waay hool another level waa baska marka qofka markaadan kaliga tahay oo kaliga isku ordayso inuu ku daba socon baska waa iska daba bursan kartaa laakiin marka kale waa dhifka anyways waxay ugu dhaheen hadana cunugtooymo waxa dhawaayay hadhow maana hayo ay heedeen ana intaas galaaskada ku siinayna dhib ma lahay way hada anyways wariya ku daalinina markuu dambeysay
saa isku dhahay dhaqsaa bixaysa cunuga gabadhaada sii maraysaa waxaa ku dhahay saf marka aniga dhibaatada kale oo igu dhacday waddankan waxa waaye waddankan markaa imaadid waa inaad isla markiiba ku dadaashaa inaad ilmaha u heshid family doctor anigana family doctor waxa la dhaho waxaa saytid waxweyn ma ogeynbo gadaalaa ka ogaaday wax ii sheegay wala xataa kuwa oo markaad waddanka imaadid dowladda ku keento kusoo dhaweynayo oo hay-adda kaleeto CCLC yaa la dhahaa meeshaan ma ku sheegayaan daas waxaan ku dhahay wax badan kuma sheegayaan qolyahan kaleeto weliba nina aniga la shaqeeyaa oo waxa caafimaadka dhanka caafimaadka loo shaqeeyo hal mar u imaaday anaa weliba idhahay family doctor u baahan cunugii ma baxanuusan yahay isagoo ila dhaqaaqaynin waxba ila sameynin suudaaniyu ahaaye markaa dabada ka galay wuxuu igu dhahay hay waayahay igu dhahay markaas wuxuu sameeyey hal maalin u yimaaday soo malayna in wax ii xareena waraqadii intuu ani ii keenay wuxuu igu dhahay saxiix waxaan saxiixa adi orodka xeeso xareyso waa xagee waa meel hal saac 2 saac gaar loo soconay saana u fiiri iyo meel kale oo ii dhow meesha ii dhow waa geen karaa laakiin meesha iskala ku dhaay aniga lugtay ku tagaan aniga hooy kaligeed aan winter jiro iskuul ay rafaad dana badan iyo iskuul dhigana marka aniga waxaan bilaabay markaas luqadda Ingiriiska bilaabay waxyaabaha marka muhiimka ah inaad bilowdo waddankan waxa waa marka imaadid dadka luqadda ku adagto luqadda inay ku dadaalaan waa muhiim because hadhow baasaboorka weyn xitaa ma qaadan kartid ilaa iyo level 4 ka gaartid marka aniga markii testing laga qaadaba meesha English level 7 looga baxaa level 6 noqdayba badana waxa isdhahay Englishka iska sii buruf garay oo iska baro maadaama aan waxa isdhahay high school diploma hadartina qaadataa dhahay waa inaa ilaa level 7 gaartaa soo waxa isdhahay high school diploma wadankii kan kala imaado marka shaqeynayso waa inaa badishaa marka saa u bedelo waa inaad marka hore Englishkaygu meeshaan wax walba shahaado kasta haystid يعني جامعة صار اكتباي كمستري وحنا وتم شهادة باي كمستري باجلا مش وحسب كشقين نصو شهادة كاستأويتك مش شهادات معديد وبدك تدقاتير أها أول ودك أجش شقينا دكتور نما أنت أصلا أنت مش إمام كسب لاوي from scratch كسب لاوي علشان وحده لما ندب نحضان أو هدي كو lesson قاتان أو and it's like وقت بدل لمس lacag lumis dadku inta badan taas way ka carraaxay dhaadii saas tahay miyaha meeshii ii fudud ka carraan baasitid dada marka iyagoo shahaadooyin jaamacada wato oo yani dhaqatarnimo ama engineer ama nurse ahaa markay meesha imaadeen waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan garanaysaa farsamada gacanta because lacag badan lagu helaa easy job waaye waqti hada baranaysid waqti raad ku baranaysaa soo ana hada koorsaan bartaa oo saas oo kale ah waxa la BSW marka la soo hadlo doonaa saa ku barto iyo saa ku helay iyo maxaa dhigi jiray barsaska u maraysid waxbarashadan marka la idinku soo hadli doona laakiin maanta muhiimadeedu waxa waaye number 1 marka waddanka timaadid ku dadaal jiwanka inaad qaatid because you know why because waxa waaye sanad bay tahay inaad haysatid soo sanadka u horeeyo maadaama aad waddanka kala aqoonin bakaas xoog saar hadhow sanadka labaad waxa waaye already gaarigaaga gacanta ku dhigaysaa bas iyo rafaadkiisa ka bixisa adiga ilmahaagana si qurux badan baad magaalada uga noolaanaysaa heblaayimo uu barnamo balcaka ka dhamaysto bas ku rafaad sida cunugiba inta gaarigaaga marka la xiimaysid adoo cunugaaga dhakhtarka u wato hadii uu dhaw gabadhaada way xanuunsan waa soo kala fireynaysaa simple gabadhaada soo kaxsanaysaa waa isku manage gareysan kartaa ma fahanti ilaahay mooyaan cid kale uma baahnid marka aniga daas war aan hadda focus ka saarayo hadda insha Allah next week waxaan rabaa inaan bilaabo G2 sidaan ku heli lahaa ma fahantay taasna waa ka soo sheegayn doonaa in another video inta soo ka egyahay insha Allah hadda ka hesho subscribe isaara like isaara hadda ka hesho barnaamijyada aan kaga soo hadli doono sidaan ku imid meeshaan qaxootinimo aan ku imaaday weyga aan qaxootinimada xataa isugu dhig waxa dhan waa ka soo sheegayn doonaa insha Allah hadda ka hesho de waxa waa ii muujiya aad ama sidii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh